Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha ee qaayalo meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee Silac 24 caawa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdisaaq axmed jaamac caawana waxaan idiin haynaa arrimihii ugu dambeeyey ee socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu ku gaala bixinayay waddanka maraykanka siyaasadiisii koongareeska uu ka dhaadhiciyay halkeebay kala degtay maxaa uga qabsoomay ilaa se hadda somalilan ma ku caloolsan tahay kulanka maraykanka ee 30 sannadood kadib bilaabmay ee inta badan baadigoobka ugu jirtay waxaynu la soconnaa in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ay casimeen siyaasiyiin koongareeska ka tirsan oo badanaa ku xidhan xarunta siyaasadda ee heritage loo yaqaano ama heritage organization xaruntaasi waa xarun siyaasadda lagu shiilo siyaasadda maraykankana waana qayb ka mid ah oo lagu daawado waxyaalaha adduunka ka socda waxaana fadhida halka khubaro siyaasadeed madaxweynuhu wuxuu ka soo jeediyey khudbad dheer khudbaddaa kadib madaxweynuhu socdaalkiisa siyaasadeed gudaha maraykanka uu sii galay xukuumaddii baydenna uu la kulmay iyo siyaasiyiinteedii koongareeska maraykanku waa siyaasiyiin ku kala abtirsada laba xisbi laakiin badanaa siyaasadooda waxaa jaangooya ila aan la arkin ama dadku aanay dareemin xilliganna madaxweyne muuse ilahaasuu kolba dhex maaxayaa shalay waxaa lagu soo dhoweeyey aqalka baarlamaanka looga taliyo madaxa siyaasadda ayaa isna la kulmay madaxa guddiyada ayaa isna la kulmay tani waxayna tusaysaa in siyaasaddii bayden iyo somalilan ay isku soo wajahan yihiin waxay kala mataanba waxaa kaloo meesha ka baxday go'doonkii siyaasadeed ee dhanka maraykan ee somalilan ay ku jirtay salaamihiisana maraykanku wuxuu ka bilaabi jiray uun xagga iyo muqdisho inkastoonu ognahay maraykanku inuu jabuuti degan yahay laakiin somalilan uu guud mari jiray waanu dhaafi jiray somalilan waxay iibinaysaa laba shay oo la yidhaahdo dimuqraadiyad iyo doorashooyin waana jeliska dhigaha maraykan labada ere ee ku soo dhacaya waana xilligan labada shay uu somalilan ka iibsaday somalilan faylkan maraykanku u furay guul bay u tahay xataa salaanna inkastoo madaxweynuhu uu sanadkiisii ugu dambeysay booqashadan helay laakiin waxaad moodaa xidhiidh muddo badan laga sii shaqaynayay dowladda maraykanku waxay aqbashay in baasaboorka somalilan loogu duulo waxay kaloo aqbashay in madaxweyne muuse ku soo dhoweyso madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan labadaas keliya ayaaba ah siyaasaddii arrimaha gudaha siyaasaddii arrimaha dibadda oo guula oo dhammaystiran xilligan master farmaajo waa madaxweynaha soomaaliya isna halkaasoo kasii salaamaya isagoo baskii siyaasadda ka sii degaya siyaasiyiinta madaxweyne muuse galbinaya waxay bayden iyo siyaasadooda ku dhaliilayaan inuu gaadhi bilaataayiraa oo 30 sannadood soomaaliya saarnayd uu jiidayey dhaqaalihii maraykankuna uu galay laakiin waxay leeyihiin balkanna tijaabi oo nala tijaabi gaadhigan waaba soconaya oo waa kii somalilan oo yurubiyan baa watee niyadjabka siyaasadda maraykanka ka haysata dowladda soomaaliya ee aan taayirada rogi karin ayaa xilligan ku qasbaysa inay somalilan xidhiidh la samayso iyadoo culays kaga imanaya maraykanka halkee buu ka digayaa badda cas iyo haddii uu fursaddaas seego china ma gelayaa godkaas shaxda siyaasadduna ma aha mid saacado iyo maalmo qaadata waa mid ilbiriqsiyo isku beddesha cid kastaana waa siday uga faa'iidaysato somalilan iminka waxay ciyaaraysaa game ah wakhti kaagama baahnin dhaqaalena kaagama baahnin laakiin salaantaadu haddii tii hore ka duwanaato salaanta china kuma degdegayno waana shuruudda ay somalilan xilligan dhankeeda wadato si kastaba ha ahaatee kulankani somalilan guul buu yahay markaad eegto jaraa'idka caalamka waxay ka qorayaan iyo markaad eegto sida xidhiidhkan loo sii hagaajiyeyba waa anigoo ah cabdisaaq axmed jaamaco idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo nooli kulanteen
dadkaygii dalku waa dalkaygii dadku waa dadkaygii duugayga noloshana cidan uga dambeeyo inaan doorkan laytan duruufii dhacay baray duugayga noloshana cidan uga dambeeyo inaan doorkan laytan duruufii dhacay baray damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta dibnaacee la raamsado